هذا كله هدام بنقاضنا وركوده Somaliland حين Somaliland كدون عربنا يس مربتان ها دولة نماذج وسوشيال كونتراكت وهالشيء بالشو والذين قف مياه ها أنا تكتان مربتان ها وهي بح أرض تجا وحين يمرك أنا جانا وين لو أقول هذا إن أنا تجنو لكن بالبانته يورسنجلين نجيب جو إكرار waxa ay xuquuqda ay sheeganayaan ilayeen xaq baan u leenahay ayay ku anudiideen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرابة وصدني كوذا جولاي سنة كلابكم لباتنيا شن مدحويني هراء بنتلان عبدولي محمد علي قاس أياب فرينتي وقول عسليد أدري هجامية بنتلان سعيد عبد الله دني وعنهم بلياء لسوكو بكرين ودري مامول كوغوي بريستيد شعب كمقالة قروي عاصمة بنتلان فرينتي وقول ريسي وهم بلياء أيي ولا لهود لغيب صديق محي كدقان طاي فرينتا aan tooska ahayn ee loo diray Siciid Dani ee uu diray madaxweyne Gaas iyo iliidkii iyo cuqaashi iyo waxgaradka reer Puntland oo bogaadiyay hambalyeeyna waa kuwa siyaasiyiinta magaca ku dhexleh bulshada Puntland ee hambalyada diray walida la wadaagi doona maxay ka dhigan tahay fariinta uu diray madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas way uga dhigan tahay maamulkan ujeedada uu kala haana maxay ahayd iyadana barnaamijkeena ayaa idin kula wadaagi doonaa madaxweyne Gaas wuxuu ku jiraa madaxdii Puntland soo martay ee intii ay joogeen go'aan saday in la difaaco gobolka Sool oo dastuurka Puntland ku jira kama uusan gaban jirin fagaarayaasha ayuuna ka istaagi jiray qadiyada Puntland ee gobolka Sool waxa uu meelo badan ka karbaashay maamulka gooni goosadka IASN wuxuu ahaa shaqsigii la wadaagay beesha caalamka in Somaliland ay la shaqeyso agagixisada buuraha Almiska sidoo oo kalena fagaarayaal ayuu ka sheegay inaysan waxba ka soo baxayn wada hadallada lagu sheegay Soomaaliya iyo Somaliland isagoo saraxay waa in la wadaagi doonaa nuqul kamid ah codadkiisi shalay ayay ahayd markii وعيري وذا هذا الذي سوماليا يا سوماليلاند وان كبخناي مادام دولة الصومالية مامول اي كديسيسو ان قبل ان لeenahay hadaba madaxweyne Gaas wada hadaladaas ma horu ka hadlay isagoo madaxweynaha Puntland ayuu ka hadlay waan la wadaagi doonaa soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan la dhaca share garay YouTube kana ku soo biira aad wada mahadsantiin xilligan oo kale aqoonsiga waqooyi bari state ee dawladda federaalku ay aqoonsatay waxa la filayay falcelinta dadka reer Puntland oo goboladan ay ka tirsanaayeen iyo madaxdii iyo dadkii deegaanka ka soo jeeday marka laga reebo Siciid Dani oo isagu bulshada iska takooray oo isagu oo nin laandheera ah oo harti ah oo daarood ah ma taqaanayo go'aansaday in uu qaaraan la galo qolyo gooni goosad ah marka laga reebo dadka reer Puntland oo dhan dareenkooda ay muujiyeen way ku farxeen wayna soo dhaweeyeen aad bay waliba u soo dhaweeyeen shacabweynaha reer Puntland oo ku wana magaalada Garowe fariintan ka soo diray dadka deegaankaas oo awalto dhibaato badan oo dulmiya Soomaalida kala dheeraaba waxaan filayaa inuu soo gabagabayn doono waana ku faraxsanahay aad baan waqooyi bari Soomaaliya aad iyo aad baan soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay wax soo kordhay oo faa'iido ayna weeye wax dhiba ma laha waa soo dhaweynayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan filayaa inuu soo gabagabayn doono waana ku faraxsanahay aad baan soo dhaweynaa maadaama madaxweyne Siciid Dani uu qaaraan kula jiro gooni goosadka imaaraadkuna uu gadaal ka taagan yahay cidda diidan maamulkiisa si khaatumana isaga ma ahana waa imaaraadkii gooni goosadka waxa doorkiisii qaatay madaxdii hore ee Puntland madaxweynihii ugu dambeeyay ee xilka kala wareegay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ugu sugooyay isagoo hambalyadii diray waa madaxweynihii ugu dambeeyay ee Dani xilka uu kala wareegay madaxweyne Gaas wuxuu markii uu Puntland joogayna go'aansaday in laas caanood la soo celiyo walow uu ku guul daraystay oo dhabarka laga togtay oo qolyihii Puntland laftigeedu ay majaxaabiyeen dagaalkii Tukaraq haddana de wuxuu ahaa madaxweynaha kaliya ee Puntland soo maray ee tan iyo 2007 markii laas caanood laga baxay isku dayay warafka dhagax ma lagu dayay inuu bal dhagax ku dayo maamulka gooni goosadka IASN
fagaarayaal la ka cambaarayay fariintan uu diray wuxuu diray madaxweyne gaas fariintan isaga oo yiri hambalyo marka hore maamulka waqooyi bari madaxweyne gaas wuxuu si cad u aqoonsaday jiritaanka maamulka cusub isagoo ugu yeeray magaca rasmiga ah ee ergooyinku ay ansixiyeen ee maamulka waqooyi bari waxayna ka dhigan tahay inuu maamulkaas u arko mid sharci ah matalaya dad iyo deegaan xaq u leh ismaamul wuxuu diray baaq nabadeed oo wada jir ah wuxuu yiri waxaan Puntland ka rajaynayaa waa fariin ku socota madaxweyne Dani in aysan sharaysan maamulka cusub oo ay soo dhaweyso wuxuu ugu baaqayaa Puntland oo isagu horay u soo hogaaminayay inaysan colaadooda ku salayn dan siyaasadeed ama qabyaalad balse ay maamulka SSC ee waqooyi bari state ay soo dhaweyso halkii ay diidi lahayd ujeedadiisu waa in la ilaaliyo midnimada dadka isku dhiiga ah ee isku dhaqanka ah ay inaan la sameyn colaado cusub oo gudaha ah wuxuu sidoo kale yiri waxa idan ka dhaxeeya baa ka weyn waxa yar ee aad isku haysaan SSC iyo gobolada waqooyi bari state waxba Puntland iskuma hayaan siciidana way ninka laftu u kirkiran tahay gaas wuxuu si xigmad leh ugu sheegayaa Puntland in khilaafka siciidani kala dhaxeeya Puntland SSC iyo gobolada waqooyi bari state ay ka weyn tahay danta guud ee wada jirkooda waana fariin culus oo si toos ah ugu duraya ama ugu beegsanaya siciidani oo khilaaf adag xilligan ama xarigjiid uu kala dhaxeeyo SSC Khaatimo wuxuu gaas leeyahay isku khilaafa siyaasadda balse ha burburinana waxa aad wada leedihiin mahadcelin iyo dhiirigelin guul iyo khayr insha Allah intii ka soo shaqeysay waa mahadsan yihiin ugu dambeynna wuxuu mahadcelin u diray ergadii dhisay maamulka cusub isagoo si toos ah u muujiyay in dadkaasi ay qabteen shaqo qaran madaxweyne Dani ujeedooyinka uu ka leeyahay waa taageero cad oo uu siiyay maamulka waqooyi bari digniin aan toos ahayn oo uu diray madaxweyne Dani iyo kooxda Puntland ee diidan SSC fariin midayn ah oo ku socota beelaha harti si aysan u burburin midnimadooda garasho ah in danta goboladaasi aysan noqon karin wax la iska diido hadii dhab loo eego taariikhda iyo xaqqa siyaasadeed ee dadkan soo mareen muddo dheer ayaa dadkan maamul goosata ah u sheeganayay Puntland oo ay xaq u lahaayeen inay difaacdana ay dayacday fariinta gaas waa midaas iyo siyaasiyiinta kale ee reer Puntland ee hambaliyada diray shaqsigii doorashadii 2019 siciidani kaalinta labaad u galay wuxuu ahaa Asad Cismaan Cabdullaahi hadda waa taliyaha booliiska Soomaaliya isaguna hambaliyo dheer ayuu diray xasan shire abgal isaguna hambaliyo diray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake isaguna hambaliyada ayuu diray siyaasi Ali Xaaji Warsame isaguna hambaliyada ayuu diray Soomaaliya siciidani kaligiis weey marka hadii shacabkii iyo liidkii iyo uqaashi wax garadkii direen hambaliyada waa siciidanina hadda maamulka kama soo horjeesanay maalintii 17 xildhibaan suuqa ka xushay ayuu maamulkan go'aan ku gaaray inuu saqiiriyo hadda kama soo horjeesan maalintaas maamul dhisan oo raba inay mataqaanay nidaamka federaalka ku biiraan ayuu suuqa wuxuu ka xushay qoliyo aan wax xarjaban lagu aamini karin lugatoor iyo hindigii caydiid waxaas meesha ka xushay kuwaas wuxuu yiri waxaad matalaysaan sool ciyaarihii buu ku darsaday faragelintiisu horey u socotay balse dhag jalaq loo siinmayo horey baa looga sii soconaya inta wanaagsan baa reer Puntland matalaysa halka markay joogto madaxweyne gaas waa shakhsi dastuurkii Puntland ee lagu dhaariyay mataqaanay intii madaxweynaha ah go'aansaday inuu hirgeliyo Puntland iyada la rabay inay difaacdo madaxweyne Faroole waxa la rabay inuu deegaanadan soo celiyo Cadda Muuse duruufuhu walaw mataqaanay ay kalifayeen oo xilligaas Puntland cadawgii maxaakiimtii iyo balaayadii isuwaneyd ay Puntland la dagaalantay haddana isaga xaq buu lahaa inuu deegaanka difaaco xaq dastuuri ah buu lahaa madaxweyne Faroolena iskuma hawlinba xidid bay la aayeen qoliyaha SNM sida la ii sheegay arurana waa u dhaleen dawaaba jirtaaba madaxweynihii markaas kadib Cabdullaahi Yuusuf isku dayay inuu xuduudahaas tago Cabdullaahi maalintii xilka wada jinay ciidamada Puntland waxay joogeen Cadda iyo Faroole baa mas'uuliyadda lahaa madaxweyne gaas ma qaadanayo mas'uuliyadda uu difaacay wuxuu isku dayay inuu dagaalamo waa ogeedeen dhabarka la qabtay marar badan fagaarayaasha ka dooday qadiyadan dadka reer Sool bal muuqaaladii xilligaas madaxweyne gaas madaxweynaha ah baan idin la wadaagi doona fariintan waa mar uu ka hadlayo wada hadalada loogu yeeriyo Soomaaliya iyo Somaliland ila arka waxa la yiraahdaa Somaliland iyo Soomaaliya warka ah
waxa kaliya oo laga dheefaa waxa weeye dadka waqooyi oo la wareeriyo Somaliland oo ismahadisa iyo goori-goosadka oo la cayiliyo weeye wax kale ka soo baxaya ma jiraan wada hadallada aad maqasho waxa la yiraahdaa wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland number 1 horta waxaan aaminsanahay wax la yiraahdo Soomaaliya iyo Somaliland ma jirto magaca Somaliland waa dalkii Soomaaliya weeye gobolada waqooyiga Soomaaliya ka mid yihiin the part and parcel of Somalia marka la hadlayo waxa moodaa laba dawlad oo siman anaga iyo Kenya oo kala moodaa in laga xishooday waxaas mideeda kale maanta dhanba wada hadalaas wax ka soo baxaya ma jiraan sababtoo ay idin sheegaya nin Soomaaliya oo madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ah baa wuxuu ku dhacay inuu yiraahdo Soomaaliland ay taga ma awoodi karaan ma awoodi karo mana oran karo in ku dhacaana ma jiro mideeda kale Muuse Bixiye Maxamed Kaahin miyaa ku dhacay inay yiraahdaan Soomaaliland ku biirayna ma ku oran karaan isaaq jooga Hargeysa Burco kuma oran karaan haddii marka ayaguna aysan oran karin in Soomaaliland ku biirayna kuwa xamar joogana aysan oran karin Soomaaliland has ka tagto maxaa la soo xijinaya la soo wareerinaya ma nimankaas laga qaado maradooda calalka ha iska wataan meesha gaarsiin aan aragnay mideeda kale haddaan baan qaadano warkooda Somaliland waxaan Soomaaliland ka go'naan rabnaa yes ma rabtaan dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho waa la idin gafemiyaa inaad tagtaan ma rabtaan waaye bax ordo taga waxay leeyihiin marka annagana waa in loo ogolaadaa inaan go'noon tagno laakiin dhulbaahante ay warsangelin lagama go'i karaan waxa ay xuquuqda ay sheeganayaan ilayhin xaq baan u leenahay ayay kuwan u diiday waa maan gurcaniyo iyo marasho jaamu halkaas markay joogto madaxweyne gaasna waa tan fariin toos u diray Muuse Biixi 2018 baarlamaanka Puntland horteeda ayuu ka leeyahay farole lagama hayo cadda Muuse lagama hayo siciidana iska badaa maamulkii dadku dhisteen oo go'aanka odayaasha 6 February uu ka hor imaadayba waa kana ila arka maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gali jirnay waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dawladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo sirnacay mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Somaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo Hargeysa mushaar looga raadsado gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu barya tago gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa haddii Allah idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacweynaha Puntland tan iyo markii laascaanood la qabsaday reer Sool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogta maantana waxa loogu daray caburin xabsi joogta in la yiraahdo dalka malihidin ee iskaga guura sidaa darteed waxa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dawladdu wado
shacabka Puntland waxay dawladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sano ee soo socda Musabbixi waxaan leeyahay xasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa wada hadal ayaan federaal la galayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa اعتراف بان دونيا هرا لو ير أفشيحان بالله الله يسان إليه كلا رجلي توج أردايو إدا كيف لاي مصبيحي وكل دولة يا إنجليز أيها جوال كسول نسيي وعنو شيء إنجليز مو كان ملها وهو جميسي مع المتشوجي وأنا سكحوريني كمان نندرا ويشة يا سومالي كله أيها دي جود أوهري نفتوذن أوهبيي سي إسكحوريان هريدا سكميسي haddaba Musabbixi waxaan leeyahay hadii Ingiriis uu dhulku siinayo laascaano maaha London xuduna maaha Birmingham talixna maaha Cardiff shacabka Somaliland dawladda Puntland waxay u cadeynaysaa inay ula diyaariyeen waxaan ku soo gabagabeynayaa waa iska dabiici in kooxo mataqaanayay dana gaar leh ay maamul la dhisayo ka hor imaadaan ama maamul goboleedyada dalka soo maray ha noqdaan ama SSC Khaatuma ha noqdaan isjiidka iyo murankuna waa maalmaha hore waxna kama bedeli karaan waxna kuma soo kordhin karaan iyaga caradooda iyo cuqdadooda la dhiman doona aakhirka dadkooda ina dhinaca ka raacayaan dib bay iska raacaysa dib bay ka macaanaysa guul baan u rajaynayaa maamulka waqooyi bari state waa maamul ansax ah oo aan cidna ma taqaanayay uga baahnayn duco iyo habaar horay buu u dhaqaaqay shaqooyinkiisa ha qabsado gaarista magaalada ma taqaanayay laas qoray gobolka Sanaag oo dhan isku ballaarintiisi waa in shaqo laga qabto difaac magaalada Ceerigaabo sugidda xuduudaha waa in shaqooyinkaas dhan la qabto markaas ma taqaanayay ma jiri doonto cid markaas jaqjaq iyo qeylo keeni karta dib bayna ka macaanaysa horay bay dadku ma taqaanayay wixii inaga haray dib bay inaga soo raaci doonaan sida haddaba Galmudug iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay ku dhismeen waa wada garanaysaa markay SSC Khaatuma oo maamul deegaan ballaaran leh oo Soomaali maanta bridge u ah midnimadooda sida oo kalena ma taqaanay gobolada waqooyi bari state aan dhahay maamulka waqooyi bari state magacayga afkayga wuxuu la qabsaday SSC waqooyi bari state ma taqaanay hadda waa deegaan xaq u leh Galmudug iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed isaga xaq u leh maamulnimo xaq buu u leeyahay dastuuri marka aad baan idin salaamay meel ka soo tagtaan